بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. درسiga ku saabsan sidee galbeedna loo joogaa diinna loo ilaaliyaa wax fudud maaha. ugu horeyn qof kastoo ummad qariib ku ah stranger ah aan deegaanka iyo culture iyo dhaqanka ummaddaasi ka tirsanayn ma fududa wixiisa inuu haysto eeshu doonaba dunida ha ka joogo. qofka galbeedka yimina waxaynu nimi bia ama deegaan environment dhisan oo dowlad iyo system iyo nidaam leh, inagoo afraad oo qaybqaybsan oo keliya. su-aasha isweydiinta lena waxa weeyaan oo u baahan inaynu aada isu weydiino, ma waxaynu u nimi inaynu wax ku bedelano bise waxaynu u nimi inaynu wax kororhsano? yani ma waxaynu u nimi maalan waxa qura aynu la nimi waa diinteennii iyo nafteenna iyo caruurteenna, faamiligaagii oo dhaqan iyo af iyo diin haysta. marka ma waxaynu u nimi inaynu wax bedelano oo maalan diin dhaqan af waxa intaynu bedelno aynu wax kala qaadano, mise waxaynu u nimi inaynu waxeennii wax ku darsanno oo hadafkeenu wuxuu ahaa intaadana hayso insha allahu in kalena ku kororso ku siyaadsa keebuu ahaa, waayo mid kasta waxba ka ratibmaya. sideedaba qolada sociologiga waxa ay tilmaamaan qofka bini aadamka ah huwiyadiisa, identitygiisa, afkiisa, dhaqankiisa, diintiisa, wuxuu aaminsan yahay iyo bulshaduu la nooliyey waxay aaminsan yihiin hadday isku mid noqdaan qofkaasi wuxuu ku noolaada bay yidhaahdaan fii sacaada wa raaxa wa طminaan ilbaal, xasilooni, deganaansho iyo rayrayn iyo badhaadho. waa markuu qofku waxa uu rumaysan yahay siduu fakerayo. maalan markaynu waddankeeni joognay waxaynu la noolayn waddan afka aad la wadaagto, diinta aad la wadaagto, dhaqanka aad la wadaagto, wax walba aad la wadaagto. marka inaad adigu ama diinkaaga ilaashato ama ilmahaaga diintiisu ay ilaashanto, aqalil majhuud waxay dhahdaan effortka ugu yar, juhdiga, tamarta ugu yar iyo waqtiga ugu yar baad gelinaysa, maadaama bulshada wadaagtaan dhaqan iyo diin iyo afba. bulsho kastaana markay bulsho tahay ee dhisan tahay huwiyadeeda ama waxay aaminsantahay ama diinkeeda waxa ilaaliya kow wasaarad dhan oo dowladdu u samaysato, wasaaradda waxbarashada la yidhaaho. waxaa kaloo ilaaliya iclaamka waddanka, media, tv ha noqdo ama raadiyo ha noqdo ama jariidad ha noqoto ama media waddankuu leeyahay, mainstreamka. waxaa kaloo ilaaliya nidaamka iyo qaanuunka iyo systemka waddanka, oo haddii inta aad ka soo gudubto waxaa ku qabanaya maxay? qaanuun baa ku qabanaya. marka waa ummaddu markay caynkaa u dhisantahay. haddaba marka aad timaado adigoo qof qura ah ama laba ah ama 10 qof oo kala gedisana aad u timaado bulsho sidaa u dhisan, bulsho dhaqankeedii, afkeedii, schooling systemkeedii, mediaheedii, waxbarashadeedii, qaanuunkeedii u dhisan yahay, qariib aad ku tahay, stranger yimi aad tahay, aad se rabto waxaagiina inaad ilaashato waxna ka kororhsato, waa qof iyo bulsho markaa iska hor yimi. laba shay baad dareemaysaa bay leeyiin, kow qurba, qariib inaad tahay. ka labaadna waxay dhahdaan challenges, waxyaabaha kaa hor imanaya inay wax xoogan yihiin.
haddii aad rabto markaa inaad maintain garayso inaad haysato waxaagii waxna kororsatid lama mid ahaa markii aad ku noolayd bulshadii ay isku dhanka u socoteen marka kan waxaad u baahantahay bay leeyihiin waqtiga ugu badan iyo xoog iyo xoolaha ugu badan inaad geliso waxaagii hore saad u xejin lahayd intaa kadibna aad ziyaado soo hesho qurbadu waxaa dhici karta inay kathratu shubahaat tahay muctaqadka iyo waxa la aaminsan inuu aada u kala gedisay iyo shubha badan wax badanoo ku shaki geliya diin ahaan inay kugu soo biirayaan ama waxaa dhici karta inay tahay kathratu shahawaat wax badan oo shahwaati nafsigaaga kiciya mansab doonkaaga lacag doonkaaga baahiya bini aadamkee kala gedisan wax badan oo hor orda asal ahaana ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi wain tutic akthara man fi lardi yudiluka can sabiili illah wain tutic akthara man fi lard dadka inta badan haddaad maqasho jidka ilaahay way kaa luminayaan wala sociologuna dee maanta waxay noo tilmaamaan bulshooyinka elite group yar koox yar baa hogaamisay bulshada weyne xaggii loo kaxeeya unbay u dareertaa dhanka loo wado uun waa shibher theory bay yidhaahdaan theoryga xerada xoolaha waxay dadkaba ka dhigeen inay dad xero ku jira yihiin xoolaha uun xaggii loo sahangeeyo ama loo kaxeeyo u dareera kolba inay yihiin ilahina wuxuu le wain tutic akthara man fi lardi yudiluka can sabiili illah haddaba su-aasha kooban waxaynu leenahay laba doorasho laba khiyaar oo quraynu haysanaa mid saddexaad ma jiro laba khiyaar unbaa yaalla laba doorasho options aad haysaa yani waa laba uun inaad waxaaga ilaashanayso sidii aad u ilaashan lahaydna inaad caqligeedii xooggeedii tamarteedii keenaysid dheeraadkana markaad raadsanayso kaasi waa optionka kale waa inaad iska noqoto oo wixii awal baad ka soo qaxday dee challenge buu ahaaye kaa aad waajahdo malakaasaa ka fududkane waa labada mid saddexaad ma jiro ka saddexaad dee waa inaad dhimataa ka saddexaad waa inaad milantaa waa inaad diin iyo dhaqan iyo afba weydaa kaasi isagoo option maaha markaa qofka bini aadamkii markuu xisaabtamayo kaasi ma aha xisaabtan ee waxa xisaabtanku uu yahay labada challenge keebaad u diyaartay inaad waajahdo noloshu alxayaa kullahaana waa challenges nolosha gebigeedu waa caqabaad nolosha fadhiga cid ku dherigtaa waa yartay noloshu waa dadaal iyo caqabad la rabaa in laga tallaabo ee keebaad diyaar u tahay ma inaad kan ka tallawdo caqabadiisa waa waxaagana inaad haysato waxna ku darsatid mise waxaad diyaar u tahay waralkan waxba ku hayn kari maysida inaad xaggaaga iska qabato dee taa lafteedu ma fududee challenges baa yaallay wax la cunaa la raadinaya dhaqaala la raadinaya nabad baa la raad challenge kale xaggaana yaalla inaad kaa waajahdo labada challenge ama labada caqabadood keebaad diyaar u tahay inaad waajahdo weeyaan qur-aanka ilaahay wuxuu inoogu tilmaamayaa tajaaribtii ummadihii hore iyo wixii ku dhacay iyo siday qaar diintooda u haysteen iyo qaar siday u milmeen waxaa kaloo qur-aanka ilaahay inoogu tilmaamayaa qurbadii koowaad ee muslimiintu siday uga baxeen marka tajribo ka horreysay islaamkan aynu hadda haysanno oo taariikhiya qur-aanka way ku taallaa waxaa kaloo qur-aanka ku yaalla tajribadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii oo dee iyaba dhul muslim may joogin yani nebigu markuu soo baxay maka dee gaalaa deganayd madiinana gaalaa deganayd carabina gaalay ahayd midhmidh baa dadka uu islaamay dhowrkaa qof oo uu islaamiya isagu waxay ahaayeen mujtamac yaroo koobanoo ku dhex nool mujtamac ka gadisan oo diin ka gadisan haysta afka way wadaagayeen laakiin dhaqan iyo diin ka gadisan oo jaahiliye ah haysta marka lababa waxaynu u baahanay inaynu wax ka baranno taariikhdu qur-aanku ka waramayee ku saabsan dadkii mashaakilkaasi qabsadee ka soo baxay
ama ku dhacay inaynu si fiican u daraasayno saxaabadii nabiga iyo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam gurbati lislaami luulaa siday uga baxeen waayo التمسك بالدين والاعتزاز به في وقت القربة أرين فضود معها ولذلك أي النبي عليه الصلاة والسلام حكت المامية صحيح الجامع الصغير عن أنس بن مالك حديث كصاروري يأتي على الناس الزمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر ماشي إنه تشالنج يبو النبي قلت المامية ضدك وقت باكو إيمان دونا قفكو الدين تيسا هايستو كل جنادو أي لم يتنين دحول هايستا يعني دحول طبعا يناد قبطا وتشالنج هذاك وقت أي سيدا الدين تكون نقون دونتا إيمان دونتا أما حديث ابن مسعود ورينا إن من ورائكم زمان الصبر اللي تمسك فيه أجر 50 شهداء منكم maalmaad dambeeya qofku diintiisa inuu ku dheganaado uu la mid yahay konton idinka id ka mid ah nabigu tilmaamay sida awgeed quraanka ilaahay wuxuu ka warramay niman reer banu israa'iil la yiraahdo yahuud reer banu israa'iil waa mujtamacyada ugu badan ee ilaahay kitaabkiisa uu taariikhdooda ka warramay taariikhda reer banu israa'iil xumo iyo samaba way leedahay reer banu israa'iil nabiya ka dhashay نبي بدنا قرآن كم تلمامي ده إسرائيل ونبي يعقوب إن كيسي يوم حياة نبي يوسف ولا الذي وهي علماء بدلي النبي مركز دم النقدين أنبياء بدن نبي سليمان نبي هود معها سليمان أبيه داود نبي الله موسى أنبياء بدن الرب بن إسرائيل ودت صالحين قرآن كورمية بل إلهي وحكوت المامية إني كمد وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون رب إسرائيل وحكم إذا أئمة ضد لقد ضيده ودين إلهي كل جي مركي أي كل صبرين إني وحود حجستان يقين تودنا أي رسم هاي يعني لما مدنا مجالين وحن أي دين تهيستين وين رمي سناي ويقين سناي second to that obstacleski كهري بالدباطة دي كهرت منه وما يليعين وما يدبعين لبعض الشيء مركي يسله هلين باي إلهي ليه أي واحد يقول نقدين بني آدم كتصالح كواس رير بنو إسرائيل بكمل هاي وحكوا إلهي القرآن كأنه قرر ما يجروب كلنا رير بنو إسرائيل كمدي بالجروب كلنا هيك نوح إلهي كوسفيه marka ilaahay wuxuu yiri waqata'nahum fil ardi umama reer banu israa'iil waa googoynay ba ilaahay dhulka lagu faafiyay minhum as-salihun wa minhum duna dhalik kuwa suuban iyo kuwa xunba way lahaayeen ba ilaahay leey wabalawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un dhibaatooyin iyo wanaagba waa ku itixaamnay bal inay soo noqdaan ilaahay wuxuu sheegay markaa كوي كجدنبي وكوي لمي فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون إلهي وحده كوا قداش دوحة مري قلق qoladan maxaa calaamada marka hore kitaabka way dhaxleen dadkii challengeska soo maray adkaa maaha waa dad dhaxlay waa sideenoo kale inagu islaamnimana uma inaan dhiman cidna meel kama inaan xoreysan inagoo dhul muslim degan oo dad muslimiina la nool un baynu islaamnimada dhaxlay waliba abiyo hooyadii buu ka dhaxlay bulshadii uu la joogay buu ka dhaxlay way dhaxleen kuwan ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay yihiin warithu hada alkitab asalkana waxa la yaqaan qofka bini aadamka wuxuu dhididkiisa iyo dheecaankiisa ku bixiyo wuu uga la jecel badan yahay waxa si fudud soo gala hatta dhaqaale caadiga ah waxaad adigu ku dhididay si fudud kuma baxaan laakiin xoolaha aabaha ka dhaxashay inta badan sayr-sayriska dhalinyarada wixii ay aabahood ka dhaxleen inta badan wayeen waa lagu tuntaa waa la baabi'iyaa laakiin waxaad adigu dhididkaaga ku keentay waxa laga yaabaa inaad yamxeeriso ilaaliso ku xisaabtantid inaanu hore kaga bixin ilaahay kuwan wuxuu yiri warithu hada alkitab way dhaxleen baa la yiri halbay kitaabka ku heleen maxaa caada waa markaa yaakhuduna arada hada aladna wa yaquluna sayughfaru lana wa in yati ma'radun mithlu yaakhudhu
واسك الدبابة واحد دونان بيسميني أنا ممكن أدور بس واحد إن شاء الله إلهي بنو الدم دافي طبعا إلهي دم بقول دافع لكن هذا هدي مشكلة دو تمادة إلهي مركا لو اسك قاضنا يعني مركا أملك ور إلهي بقى غفور رحيم إلهي بنو دافي يسك ولا غضا أيكو وضع وما حيك صهر بحياة إسلامنا وخلافيان وحانا ينفتوا وشاكينيان إلهي وغفور رحيم إلهي بينو دافي لكن ما ها غفور رحيم نما انتو الرمية وحي كتشوك سدي أولي إلهي وحي هراهي قد دافي مكان وضد صحيا وإن ياتهم عرض مثل يأخذوه بإلهي تي كل بعض الله ميدا هداي سومر ترى هالكي بيك وضيها وقادني أن بإلهي إلهي مركا وحدو وركوان ميان بلن إلهي كقادن إن يدي حق كسو قنادان و دين تن كسو قمان و آخرين يدنبيسو قادان قالوا نوعا ولك لنا إلهي وحولي والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين والذين يمسكون كوا كتابك قبقب سنة يبا إلهي مسكه بتضعيفه اللغة العربية يعني وحويان مركز قبقبته وقف آن رمين وحنين وكبحصده هل يا دو مرقول قبطوي كسيبته وقف عادي لكن كان واقف ربا محي إنه حجسته kuwa xijisanayaa ilaahay yiri kitaabkan ee salaada oogaya kuwana ajirkooda dayici maaya ilaahay yiri idan waa laba midoon inay dhahna insha Allah sayghfaru lana wa arurtu waska hagaagi doonta diinku waa arrimaha diinta oo dhamay noqdaan insha Allah inaynu sayghfaru lana ku dhisno ku binayno على هذا المذهب قادنا يينا قادنا مذهب التمسك بالكتاب إنه حجسنه جيلكي هوري الصحابة سيداي وقبحين صور يرو كوبان بان واحد كسينيا أفرتي سورة دو القرآن كوغو هرية سودقة علماء waxay isku waafaqsan yihiin afar suuradood qaybaha ugu horeeya inay quraanka u soo hordageen waa laga yaabaa riwaayaadka oo isdhaafinaya afartan isay u kala horeeyeen inaad aragto laakiin afartaasi inay yihiin afartii ugu horeeyay ayaa badiba culimadu tilmaamaan waa suuratul alaq inta ugu horeysa اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم آياتك أوجه الرئية وسورة المدثر آياتك أوجه الرئية يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر وسورة المزمل آياتك أوجه الرئية يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا آياتك أوجه هي سورة القلم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون علماء يدهدان وحيجي كواد النبي محمد كوب بالعظم وحوها وحي أنسي فضود لوجو شيء يسيح وقال لوجو شيء يعني دور شربو جبريل هل كان قبطه وانتو نفط يسوق يعني النبي قال اقرأ والنبي يقول ما أنا بغاري حتى مركز نفط كل يقعدوا سيدا يولي اقرأ هاي علماء يدهدان الأصل في التعليم وإن سفضود الله يسوق شيء لكن هذه المسألة وحل الربيبي لي في قمة الانتباه والصحوة إن أرنك صوص عضا وحفظود إنان وهينين لسوت شيء أفرت الشيء محي شيء يعني وقهر رأي آيات كان يكور رميان لبس صورة ضد مسألة العلم بيكور رميان اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هي النون والقلم وما يسطرون هاي علماء يدهدان وحي مسألة تلمامسة بالجهل إن الدين لو حجين كرين يدو جاهل ليي إن وحبل حجين كرين أصل كدين تونا إن كوسا ليسانتاي عرب وقتيgeedii waxa laga yaabaa aqoon dadka ugu dambeeyay inay hay baahiyaha qabtay kale waxa laga yaabaa hadii adiga lagu oran lahaa maxaa lagu islaaxin lahaa cadaaladda hal raadiye kana raadiye wax badan oo kale inay tilmaami lahayd laakiin mas'alatu tawxiid wal ilmi bay yiraahdaan waa wada socotay asalku wuxuu yahay markaa aqoon ilaahay la barto rusushiisa la barto aakhira la ogaado ilmi baa lagu xijin karaa waa shay koowaad laga fahmayo bay yiraahdaan شيء قال بعد اللي فهميه آيات كان يوحى ويان بيليين
قفك بني آدم كي أما إساقا الدعوة وضع أما إساقا الدعوة الله وضع أما أدا القرادين إياه أدا سيمني الميوسي صعودة مالين بين مقوران إياه أما أدا وحرادين إياه جروب كاقا يسكو ديانا تبيرسو هل كاقا ينات كدقاقين ينات عد صوبير سطو أدا يسكو ديا سوقت باي لهي وحكو بالهبي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر كان استودوبا يوبا ليلي كعودك كعودين شاك ربي قانا وينيه وثيابك فطهر نفطادا يا قلبك يا مرضادا يا وحاقودن طاهر يال والرجس فهجر حمهنا كهجروت ولا تمنن تستكثر waxaad wadana ilaahay dartii u wad xulaa ku raadinin adoo ku badsanaya sameeynin wali rabbika fasbir jidka hadaad qaadana mashaakil baad la kulmaysaa sabir oo adkaysa la leeyahay yani waxa lagu bilaabay nabi maxamed hadaynu dhaana alayhi salatu wasalaam waa aayadkii labaad ku soo degay sida culimo badan qabto cilmigii ugu horeeyay intuu leeka waa iqra iyo waxooga riyooyina علمين تسوهي هذا يدو علمه انت كوكوبيا وحلا يدي محي مبدأ عفافي مبدأ بلو إذا وحيد هذا خير الدفاع سل يسود الدفاع وحوقفي عم بين هذا أدقو ويرر قشة يعني هذا كمرك الوارك الله يدور وكي وذا كيم بدين شيء حقين وقدو أدقو هنا تهاي قفك وحرادين إياه اسكود يدت كينو الراديو لكن إنسانكو dhibta tirada badan la uma adkaysto ilaa iyaynu ilaahay xidhiidh dhab ah la leeyahay mooyaane sawgeed baa waxaa la yidhi yaa ayuha almuzammilu qum illayla ilaa qaliila nisfahu aw inqus minhu qaliila aw zid calayhi warattil alqur'aana tartiila inna sanulqi calayka qawlan thaqiila inna naashi'ata alleyli hiya ashaddu wat'an وأقوى مقيلة واذكر اسم ربك بكرة أوكي إلهي وحولي كان استوضوبا يو كع كيسدد يو باليلي كعو إلهي ستاك مركز لي بكو قبصته نرش عادي هدي أدوغا تسكي قادي كري ويدم حاد سميساه استنورمك بني آدم كالغوية قانا وحويان inuu fakaro asxaabtiisii cidii xiriir kala lahaa war maanta yaad mushkiladan yaa ku caawin kara mesela problem dhaqaalaha kugu dhacay marka koowaad aad mushkilada xalil karay waxa sooraysa bartalo yaad wax ka soo amaata ama wax ku siiya marka maskaxdaada markaaba waxa ku soo degdegaya midhadkii xiriirkii nuu fiicnay ama hanti haystay ama wax ku dhaamay ama caynkana tiraado war bal waxa ama hema inaad wax ka weydiin inaad wax ka hesho waa suurtagal qofka muslimka ee dhabta ah markay dhibi ka hortimaado xalka koowaad ee uu raadiya wax weeyaan rabb samaawaati wal ardi inuu xidhiidh la sameeyo man biyadihi malakuutu kulli shay ilaha gacantiisa wax waliba ku jiraan albaabkiisa inuu garaaco sawgeed baa nabi maxamed markay dhibtu ka hortimay ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayuha almuzammilu qum illayla ilaa qaliila kanis dadayow kanis tuuduubayow kac habeenkii intiisa badan yar mooyaane nuskii ama wax yar ka yaree baa la yidhi maxaa lagu cileeyey innaa sanulqi calayka qawlan thaqiila baa ilaa yidhi war culus baa lagu dhiibayaa dacwadan iyo diinkan iyo qur-aankan iyo systemkan inaad qaaddaa arrin fudud maaha baa ilaahay leeyahy war culus baa lagu siinayaa laakiin warkan culus waxaa kuu fuduudinaya waa maxay xidhiidhkaad ilaahay la leedahay كلما حديد كانوا ربي لنا وضعيفه اسبدل كانوا لشيء حق حمي ودقدقية مركز تو حوق يستحديد كاد إلهي لا ضحينا حكي سدد حكي سنة سدين كاجية وحقو وحوق بيا إذا آيات كان مركز قصة الضره أنا قول ربينا الرأي جودون كتلمامو كوبا وحويان إن وحلا برته ودين تادا عن علم إنها تكسقنات وايو شبهاتك كما جوابي كرتيد أما مكر نولان كرتيد علم مو يعني شبهة دليل باك الريحي كرا دان الدليل هيسانين واتشابيسا إذن علمين ويهي لابد شهوات كنا حديد كاد إلهي لا دي بدني دي سريحة إن دي إلهي حديد بدن لا يالط
faafinta diintuna environment bay kuu abuuraysaa aad ku dhex noolaan kartid inaad diinta faafisid oo markaasi aada faafisid. saxaabadii iyo nebigii markay masaa'ilkaa ku adkaysteen noloshu umay fududayn, nolol adag bay la kulmeen. qaar la toorjar gareeyo, qaar la dilo, qaar toorjarka ku dhinta isagoo nebi maxamed arkaya calayhi salaatu wasalaam. qaar toorjar lagu dilo saxaabadiisi ka mid a, qaar sidii loo toorjar garaynayay iyagoo tii u dambaysay ee laga sii daayo, nooc walba way yeesheen. haddana ilaahay wuxuu leeyay min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu allaha calayh faminhum man qadaa naxbah wa minhum man yantadir wamaa badaluu tabdiila baa ilaha yidhi. mu'miniinta waxaa ka mid a rag ka run sheegay waxay ilaahay u ballan qaadeen. soo sheego qadiyatu sidqi dan kalama hadlayna. ka run sheegay wixii maxay ballan ay ilaahay la galeen. fa minhum man qadaa naxba wa minhum man yantadir baa layidhi. waxaa ka mid ah qaar sidaa ku dhintay iyagoo jidkii ku taagan iyo qaar sugaya waddadaas inay hayaan. ilaahay markuu saxaabadaa tilmaamaya waxaa lagu tilmaamay rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illahi wa iqaami alsalaati wa itaa'i zakaa yakhaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu walabsaar. waa rag baa ilahay leeyahy kuwaasi aanay mashquulinin tijaarada iyo bayca iyo waxgadista iyo baamisha lacag xoogsigu ama adduunye xoogsigu aanu ka mashquulinin can dikri illaah ilaahay xuskiisa iyo wa iqaami asalaati wa itaa'i zakaa salaada ogisteeda. marar badan waxaa idhahdaa su-aalaha soo noqnoqda had iyo goor waxaa ka mid ah salaada iyo shaqada, salaada iyo shaqada. sheekh dee shaqadii maxaan sameeyaa, salaadii baa caynkan, salaadii baa cayn. waayo shaqada xaggeena muhima laakiin tan kala agteenna ah taqiilka loo raaday. shaqada qiil u raadin maysid iyada, shaqada waa shaqo. waxaa u baahan in qiil loo raadiyaa waa maxay? waa salaadii iyo saa loo tukanayay. ilaahayna wuxuu tilmaamayaa qolada tan waxaa lagu sifeeyey inay yihiin rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illaahi wa iqaami asalaati wa itaa'i zakaa. waayo yakhaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu walabsaar. maalin bay ka cabsanayaan. dad shaqada in laga eriyo dhaqaala daraad ka yar cabsanaysaa, laakiin qoladani waxay ka cabsanayaan maalin qalbiyada iyo garaadka iyo indhihu iyo wuxuba gelgelmaan. cabsida maalintaa ka haysa daraaddeed mar kasta iyaga waxa priority-ga ule number one ah cibaadadooda iyo kowa kan. markaa waxaan leenahay kow ahlu kitaabkii hore hadday gurbada waxay kaga baxeen baynu kaga bixi karnaa. lamaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun waladiina yumasikuuna bilkitaab, kitaabka kuwii qabsanayay waxaynu kaga bixi karnaa baynu leenahay wixii saxaabadii nebi maxamed kaga baxday calayhi salaatu wasalaam iyo rasuulullaahi muxamed iyo qur-aankii koowaad ee nebiga kusoo degay siduu u tawjiihiyey xagguu u diray. waxaan kaga bixi karnaa baynu leenahay marka aynu garanno waxaynu haysanaa waxa inaga maqan inuu ka qiimo badan yihi. alictizaaz biddiin, yacni ma waxaan raadinayaa qiimo badan mise waxaan haystaa qiimo. bini aadamku markuu wax iibsanayo ama wax gadanayo waxaad wax ku raadisaa maxay? dee waxaa qiimaha badan le inu xaggaaga soo maro. shay taafiha ma iibsatid, waxaan qiimo ku joogeen ama waxa kan ma rabtid. nolosha ma diinkaa qiimo badan oo aynu ilaalinaa mise waxyaabaha kale? ilaahay waxayna baraya inaynu diinteenna muctasiin kuwa ku faano oo xejista, maaha kuwa xejiyo qura. xejinta waxaa laga yaabaa inaad tiraahdo ilaali, laakiin haddaynu salaadii qabanno waa salaada iska tuko, laakiin dee bal meelaha aan lagu arkayn iyo su-aaluhu waa musqusha ma lagu tukan karaa iyo meelaha ma lagu tukan karaa iyo gaadhiga adigoo wada kursiga ma iskaga tukan kartaa iyo meelahaasay su-aaluhu badan yihiin. laakiin alictizaazu bidiin uu ka gedisan yihi. diinta hadda inaad muctas ku tahay. saa daraaddeed baa ilahay wuxuu leeyahy walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniina walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun. war cize iyo sharaf waxaa le baa ilaahay leeyahy alla iyo rasuulkiisa iyo inta raacday. munaafiqu se ma fahamsana. taasi maxay keensanaysaa? saxaabadii diinta haysay bidhbidhka noloshu ma niyad jabinin. maalan dagaaladii ugu waaweynaaye saxaabadu gashay waxaa ka mid a xarbi alqaadisiya. ciraaq meeshan la yidhahday ku taallaa. ciraaq
waxaa inteeda badan haystay Persia dowladdii Iran baa ka talin jirtay dee caasimadoodii Madain waa Baqdaad dhinaceedaba kama foga maadaama ay ka talin jireen markii muslimiinta iyo nimankaas Iran ee majuusiyiinta dagaaladu dhex marayeen dagaaladii ugu waaweynaa waxaa ka mid ah dagaalka Qaadisiya dhowr boqol oo kun oo gaala iyo 30 kun oo saxaaba ah ay sortaagan iyo intii la socotay saxaabada waxaa hogaaminaya 10 المبشرين كامدة سعد بن أبي وقاص بعيدا كوطا قال هذا كلنا واحد هجامين إن رستم لا يرادو جانا ندودي وويناي لقدم بيه كامدة مركان رستم حرب باللي ما كان منت لسيدي وفكر يعني إنه وقاده وسعد ويديستي إنه الصادره عد وذا هذا البلو نحمره نبى الله دري وسوء عليه متكلا بلي صادر والله ده صدح نبى كل بمدو تجي صدح الصحابي هي كل بمدو تجي مثلا ميت كم يدون هذين سوقاتنا ربعي بن عامر با كميدا نكن يروح الربيين هنجبيو صحابه تنوت المام وحن سو ساري قاج اي دقاله دون هدي تينا دقاله بخيو marka sariirtii boqortooyada meel la dhigay dabeetana red carpetiska ayaa la waday dhulaadu ballaaran ninkan muslimiinta ka socda fars yaro gaaban buu wataa waan intaas oo bilood dagaal ku soo jiray denin ay ka muuqato adduun iyo daldalaalkii maaha Rabi ibn Amr oo fars yaro gaaban wataa soo baxay dabeetana markuu soo gaadhay meeshoodii buu iska soo dul eriyay faraskiisii kama degine waxay culimada taariikh sheegaan barkimooyinkii meesha teedsanaa mid ka mid uu faraska ku xidhay dabeetana uu ka soo dhaadhaco xaq uu soo dhaca waxay yiraahdeen boqorka saan looguma tago hubka dhig boqorka adoo hubsita looma tago wuxuu ku yidhi boqorku isaga ii yeedhay anigu maan rabine haddaad rabtaana sidaydan baan ugu tegayaa haddaydan rabinna waa iska noqonaya boqorkii waa loo sheego waxaa la yidhi Rustam ninkii wuxuu leeyahay anigu idinkaa ii yeedhay ama maca hubkaygaan gelaya ama waa iska noqonaya soo daaya buu ku yidhi maca hubkiisa soo daaya isagoo wixiisii situu soo galay su-aal baa la weydiiyey markaa maa jaa bikum war maxaa idin keenay abaar iyo gaajo iyo dhib iyo balaaya ka soo maxaa idin keenay saxaari uga timaadeen wuxuu ugu jawaabay الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام إلهي بأن سوابحيي إن نكسر ردتك عدي ودونه الضوما هيس الضون سنة يانو إلهي الضوما ودقنه وحنوسع عن أبو لين البنادم كحرينه مخلوق خلينا الضون سن إلهي يقول إن يدتك الضوما ونقضان ودتك حرية هلان بحنوسع عن أبو لين cibaadadu ay ilaahay gaar ku noqoto waxaanu kala u soconaa buu yidhi inaanu dadka dunida ciriirigeeda ka saaro ballaceeda u saaro haddaba ninkan kaarbatiyada cascas dhigtay carshiga weyn ku fadhiya ayuu wuxuu ku leeyahay ciriiriga kaa saaraya ciriirigu waa qalbiga kan adduunku qiimo lama fadhiyo weyn kaarbatiyadan iyo waxaan ninkan ku fadhiyaa wax weyn oo qiimo uma samaynayso waxaa kala fiican عدالة يا مارتا التوحيد كيس يا الدين تيس يا وحى استاكل فيه بركوا حلي الدون كوا ربط كوا قبطاية عديد كان الدون من كاب حين يا وحن كوا صار يا محي بلع عدو كان كوا جيني يا بولي وحن كلاو صعد أبو الديمها الظلم جودين كاك حينو إسلام كعدالة دي سكوا صار يعني موقف كروح الصورية نينك كان ولو ميشن نينك حول بدن وكا بدبد كادويا كغفي عن وتاغن يحي انه معتز بالدين يحي دينتيسا wax u dhiganta inaanu jirin inuu rumaysan yahay taas waxay ka sanaysaa qofkan diintiisa ilaashado ilaahay wuxuu leeyahay hatta hadii sida kale oo dhan la idin ka xog bato wala tahinu wala tahzanu wa antum al'auna in kuntum mu'minin war hal liidanina baa la yiraahdaa murugoonina idinka koreeya hadii iimaanu jiro dad rumaysan tahay rabbiga ay ku xidhan tahay adaa koreeya sallallahu alayhi wa sallam oo saxaabadan reer Makka ah ee Nabi Muhammad alayhi salatu wa salam rabbi yeesay u muuqdeena en markii Bayt al-Maqdis muslimiintu ay furteen Bayt al-Maqdis ninka furanayay ciidankaasna ninka loo 10 al-mubashirin hogaaminay Ubaydah ibn al-Jarrah ayaa ciidamada watay dabeetana qoladii masiixiyiinta meesha joogtay waxay yiraahdeen sharti ah furaha sulx baanu galeynaa
saasaananu idinkula heshiinaynaa laakiin furaha wuxuun baanu u dhiibaynaa amiirulmu'miniinkiinu ha yimaado isagaanu furaha ku wareejinaynaa sidii buu ku soo baxay abu cubayda cumar buu la hadlay wuxuu yidhi nimankii saasay yidhaahdeen dee haddaad noo iman karaysa kaale cumar wuu soo baxay wuxuu rabaa firihii beyt almaqdes inuu la wareego meeshana isaga furaha loo dhiibo mucaahadadii la galayna sidaasi ay ku hirgasho wuu soo socday markuu meesha in yar u soo jiray ayuu wuxuu soo maray dhul dhiidh iyo roob helay oo dhooba midhana dabeetana daabadii uu fuushanaa intuu cumar ka daadegay oo labadii kaboodna la baxay ayuu labadii kaboodna halkan ku soo qaatay neefkiisiina soo hogaamiyey dhoobadiina iska soo dhex socday abaa cubayda iyo ciidamadii muslimiinta raggii soo dhaweynaya ka hor yimo abaa cubayda wuxuu yidhi cumarow ma jeclin maa yusiranii ana ahlu lbaladi istashrafuuk xadiidka xaakim warinayo magaalada dadkeedii iyo madaxdeedii inay ku arkaan sidan adigoo ninkan faydan ee cagaa dhoobada kule ah in lagu arko maan jecli buu leeyahy cumar eraygii wuu dhibsaday adiga cidan awah low yaqul hada hayruk buu yidhi abaa cubayda waxaan jeclaan lahaa midaan adiga ahayn inuu yidhahdo abaa cubayda adiga waa kaa xishoonaya buu leeyay laakiin waan ciqaabi lahaa nin kaloo aan adiga ahayn inuu yahay marka waa ka xumay buu leeyahy low hayruka qaalaha mid aan adiga ahayn mu warkaas ka soo baxa buu leeyahy dabeetana cumar wuxuu dib ugu noqday taariikhdoodii abaa cubaydaba waa ogiyey laakiin wuxuu yaro raboon isagoo amiirulmu'miniinku u muuqda amiirulmu'miniin xagga dharka iyo haybadda inuu meesha yimaado laakiin cumar wuxuu ku leeyahay waxaanu ahayn inaa kunaa adalla qowmin dad aada u dullaysan baanu ahayn ilaahay diintan buu nagu ciseeyo dad nagaga dhigay buu leeyay markaanu carab ahayna dhulkaygii joognay dad dullaysan baanu ahaan jirnay laakiin ilaahay wuxuu nagu ciseeyo nagu sharfay diinta tan haddaanu ka raadina buu leeyahay sharafta meel aan diintayada ahayn ilaahay waa na dullaynaya ilaahay diin buu nagu sharfaye waxaan diin ahayn haddaanu sharaf ka raadina waa dulloobaynaa maxaynu uga dan leenahay waxaynu uga dan lehay qofku muctas bidiinihi inuu rumaysnaado in wax ka maqan yihiin inaanu ogeyn bidhbidhkan adduunya inaanu qiimo badan ku lahayn taasi waxay keensanaysaa inuu diintiisa xoog u xejisto ilaahay isagoo nebi maxamed la hadlaya calayhi salaatu wasalaam wa min waraa'ihi saxaabada lala hadlaya waxaa la yidhi fastamsik biladii uuxiya ilayk inaka calaa siraatin mustaqiim wainahu ladikrun laka waliqowmika wasawfa tus'aluun ilaahay wuxuu yidhi xejiso fastamsik biladii uuxiya ilayk wixii lagu soo waxyooday xejiso waayo jid saxa baad ku sugantahay baa ilaahay leeyahy jid quman baad ku taagantay wainahu ladikrun laka waliqowmik qur-aankaas iyo waxyiga iyo diintaa lagugu soo dejiyeyna sharaf buu kuu yahay adiga iyo tolkaaba baa ilaahay leeyahy ilaahayna wuu idin weydiin doonaa marka wixii ugu qaalisanaa inaynan siisanin maxay wax liita man kaana yuriidu alcizata falilahi alcizatu jamiica الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وحلاني شيء كواد حويان إنه غربة كقبحنه وحي أهل كتاب كهور إلهي كتل مامين كقبحيين إنه كقبحنه وحي صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام كقبحضي إنه معتز كوهانه ضد كفانية waan qarsanaynin diinta tar inaynu naqaano wixii inala kulmo markaynu waxaan sheegayna macnaheedu ma aha nolosha oo dhan baa iska fududaanayso gaal ku dhibi maayo nolosha wax maya system dhan oo dhisan oo waxaan kasoo horjeedaynuu nimi laabud min tadxiya waa laabud in culays kaa hor imanayo challenges ay jiraan oo dhib ay jirto laakiin waa maxay taxadiyaadka in geesinimo iyo sabir lagala hortago geesinimadu goob dagaalo qura maahee geesinimada adabiga ah baa ka roon kalimatulxaq inaad markasta ku dhawaaqi karto waxaaga inaad muujisan karto inaad ku dhiiran tahay mabaadi'daada inaad xejisan karto walidalik baa ilaahay reer banu israa'iilkii hagaagay wuxuu yidhi wajacalnaa minhum a'immatan yahduuna biamrina lamaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuqirun yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabituu
واتقوا الله لعلكم تفلحون وركوا إيمانك لقاها ليوبا إلى هيدي صبرا والله الصبر لك تبال ليه مشاكل كوكو بدن دونايو وبني آدم وحن كلو إذن كهر إيمان ياي يا كصبر بدن نبا إلى هيلي ورابطوا في ثغوركم قوابها أتكترتان إنه في سيدين نحجسته إلهنا كعب صدى وقولي سندون تنبا إلى هيلي سبحانه وتعالى انت كذب حينو باهنا هاي نوع من الحكمة نوع من الحنكة نوع من اللباقة نوع من الرفق يدوم مبادئ دكو حكي سرينو هدنا انت اينو صف ضد وحوة ذكرين انو وضنو marka qofka la yiraahdo diintaada xijisa dadka barba u fahmaan cunfi iyo dagaal iyo qalafsani iyo insida maqiiq meel kasta kala hortag sidaasna ma sax maaha waxaagay hayso xijiso laakiin de martaatay usulubna u noolow yu'ti al-hikmata man yasha wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran kathira wa ma yadhakkaru illa ulul albab Aisha ayaa waxay sheegaysaa xadiiska sheekhaynku warinayaan ولا النبي قوت مي يقعد ده كوتشيس تيس يو عاية راسا واحد كويل هذا السلام عليكم السلام لام كلا جبودية لكن واحد لسكر جاي يدي الليل السلام عليكم السلام عليكم وجري كركا جهات وأخبار السلام عليكم نوا ربها كحفديو لما تقولي يوانا كركا جهات السلام عليكم نوا موت يجري بلايو كركا جهات دبتنا عايشة أنت عروتي مركبة واحد تري بل وعليكم الصابن واللعمة إذنك عرض اللي يقريد سينا عدشي وكوركي إن إذنك ها طبي تري نبغى عليه الصلاة والسلام إسقو كون مغلية وحي راهدين عايشة مغلية واحد تري أيو عايشة هدنا تلصينا يا وحلي يا عايشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله عاشاي إلى هو الرفيق وكوسي دبعسن تتكون مريه يحب الرفق في وحول بنانسي دمرسان لو سمايو اي الله جعليه سبحانه وتعالى عايشه وحي مود نبغينا انو مقلين ملا دمرتاني وا يعني وركيبانو مقلينه او لم تسمع ما قال وحي كهدلين مياد مقال الله رسولك سيو قد قلت وعليكم بالنبي ومقلي يعني وعليكم من بان دوسو غابي وحنو قدان لنا هي حديث الروايه امام مسلم حيث الامام ان الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه رواية كلام إمام مسلم ورينا يا رجينا يدنا وحي شيء عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه وحنو قدن لنا يوم عقيدة دينية مبادئ دينية أخلاق دينية دقن كينا دمان تودان حج سنو تا معنى هيدنا لقى ما فهم أيوه عنف يو المشاكل كلام أبور لقى ما فهميه واحد لقى فهميه إنه عقيدة الإسلامية يدقق كإسلامية ينقض الموضوع قضية كلام تلمامية وحويا وإنه كلا قرنا محن قاضنا إن محن كتجينا وإن كلا قرنا مينو ميد مينا وإنه بابا إن ذوبان mise اندماج halkan markaad joogtaan erayaal la idin sharxa la yiraahdo maxay assimilation iyo integration dadka badbay yiraahdaan geetobay galaan qaarna way assimilate gareeyaan qaarna way u dhaxeeyaan oo waxay galaan maxay integration geetog waa intaad meel isku qafulso xira yareeda wax walba may tiraahdo taade adigu bay ka suurtagal tahay yararkaaga iyo islaamaaga waxa kan kama suurtagalaha in dad meel isku qafili kareysana kaagi baa ku roonaa inaad isku qafisho وارد حقنا صابح كدر سمكونا دوا هذا أردنتي وسكملنكو وحصوا هراي وحيجونا ينقوا عديان إن أنا نبهنا نفهم نلا إذا ده integration مال والبوح على لي integration politicians يعني ما كسياسيين تي بلشة كستو homogeneous ويكف ضد البلشة ده كلا جديسن ان تعدد كويو نوعيات كلا قديساني وحيابا قاركود ويكفي عين بينا لكن سياسي وما فينا سياسي وحو جعلي ضد السوء اركتيو اسكو
dhan u jeedo dee dhan qura wada kaxeeyo laakiin dad geesale waa ku yara dhib badan tahay marka iyagu integrationka ay sheegaan inta badan saas u badan yihiin laakiin adigu inaad integraysto waa sax laakiin laba weerood waa inaanu kala garanaa ما الفرق بين التبعية والاستفادة بين التقليد والعلم حول حياة إنه دميردان راعي نقولنا كودا إنه أو وحول بكاق هذا إنه إنه وحكفة إدنا أقولنا ككررسنا وحوين بقول حياة وحي وحنفعية يعني دين هذا كهري ما إنه كقاعدة النووية لكن مسائل كعقائد هي الدين هي أخلاقيات كين هي عبادات كين وحين إنه كتنازل معها إنه كتنازل معها بركوا إنه كلا جرنا نبي عليه الصلاة والسلام وحط المامية إنه يدعي دونته لا تتبعون سننا أو سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وحراعي دونته أبو نبي يقولي ودوين كده كيدين كهرية تاكا يردون صحابتي دمنتك هيدا وحسك صور دعسية دولك حريستي يا عين كان أبو وركا كلي مركز النبي وحولي ولبا حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموه أو لدخلتموه حتى هدي قد مسلوا لي قد مسع علي هدي قلان وكذا بقى لي يسمون النبي مركز واحد يا رسول الله اليهود والنصارى ما يهودي النصارى قال فمن يا كلام النبي يا كلا مالك قالوا هدنا النبي وحو يدي حديث كانوا كلا سورنا من قبلكم بالراعي دونتان مركز واحد الروم والفرس ما رومانسك يو بيرشيان كا يا كلام النبي وحو يدي ابن حجر رحمة الله عليه مركو لبدا حديث بفسيره وحو ليه وحي سياسة دولية يباب كاكو صاب سنة وضد الرومانسك يو بيرشيان كا أيا راعي دونتان هذا نقطة بدعة يدين أبورك هي وحنك هلنا وحراعي سان محي اليهود والنصارى إذن أصلكم حديث كان ينوت المامية وحنوت المامية قفك مسلم كاي وحو كغسو عيي إنو قرطو يهودية نصارى محو كغسو عيي رومانسي بيرشين محو كغسو عيي مبادئ عقائد الدين بات كغسو عن تاي محاودة ليدين تجارب الإنسانية وحي كترسن بني آدم كوحي اكسبيرينس كو كل حالي aqoontan la sheegayo dhaminteeda badan waa maxay waa tajaaribtii bini aadamku kala dhaxlay idan waxaynu qaadanayno iyo waxaynu ka tagaynaa inaynu garanno ilaahay markuu quraan ka warramayo anbiya ilaahay ka warramay fi suurati maryam baan rajaynaya anbiya ilaahay ka warramay nabi hebel marka anbiyada alla ka warramay ayaa ilaahay isku soo duuduuba wuxuu yidhi ulaa'ika alladhiina an'ama allahu calayhim min annabiyyiina min dhurriyyati aadama wa mimman xamalna maca nuux ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا كواسبا إلهي وكوي إلهي النعمي ذرية النبي آدم يكوي النبي نوح يو نبي إبراهيم يا نبي إسرائيل وحيد دلالي أنت أنو هنون النبي إلهي لي إلهي آيات كيسا مركا مقالان وخضوعانا وسجودا لكن جروب كان النبي هذا كبحسن با إلهي طلبا بهدنا فخلف من بعدهم خلف جروب كوا دبا مريبا إلهي يدي وهو ضدودي كوعدي محي سمايه أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلغون غيا صلاة يضيعين شهوات نفسي وحي ربطي يسكر راعين كواس النار تقليا بالغوت الماما محاق وقدون لنا مركا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا waxaan u dan leenoo leenahay waa inaynu garannaa waxaynu haysanayno waa inaynu garannaa tajaaribtii hore ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa duul wixii la rabay inay ka tagaan mooye wixii la rabay inay xejistaan ka dhacay oo maxaa ka mid ah مثلا ilaahay wuxuu tilmaamaya watlu calayhim naba alladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu الshayطaanu fakana min alghaawiin waxaad dadka ku akhridaa baa ilaahay yidhi warkii kii aanu aayaadka siinay mid diin garanayuu ahaa maxaa ku dhacay fansalakh waa ka siibmay baa ilaahay yidhi dabeetana shaydaan iyo gruubkaasuu ku biiray kaa ilaahay markuu tilmaamay waxaa la yidhi famathaluhu ilaahay wuxuu markuu soo tilmaamay
haddii ilaahay doonayo qofkani qof sugan buu noqon lahaa waa kaa la soo sheega waxaa la yidhi famathaluhu kamathali lkalbi in taxmil calayhi yalhath aw tatruku yalhath kaa tusaalihiisu eygu buu la mid yahay baa la yidhi eyga haddii la eryana carabka waa laalaadiyaa hadduu iska fadhiyana carabka waa laalaadiyaa xoolaa kale sidaa maaha xoolaa kale markay kulayl iyo waxaa dareemaan bay harariyoodaan markay se nabad qabaan dee ma harariyoodaan eygu laakiin mar kastaba isagoo carab laala kan waxa weeyaan hadday diin loo sheegay haddaan loo sheegin waa isku mid ilaan marka horeba diin buu hayo uu ka baxay waa kitaab xoor dee wadaad quri kitaab xoor maaha haddaynu wadadaa wada cararo dadku waa wada kitaab xoor buu noqonayaa ninba intuu hayuunbuu xoorayaay nin salaad xoora iyo nin inka durugsan xooraba ninba intuu hayuu xooraya waxaa kaloo ilaahay qur-aanka inoogu sheegaya shaytaankoo qura maaha dad mutarabisiinana inay wadadan fadhiyaan dad ugaadhsi taga oo jecel inay naga saaraan ilaahay wuxuu leeyahy wadda kathiirun min ahli lkitaabi low yaruduunakum min bacdi iimaanikum kufaaran xasadan min cindi anfusihim min bacdi ma tabayana lahum lxaq in badan oo ahlu kitaab ka midi waxay jecel yihiin baa ilahay yidhi inay diintan idinka bixiyaan iimaanka dabadii inay gaalnimo idiin celiyaan weliba iyagoo uu xaq u cad yahay maray wax garteen xaasidnimo daraaddeed baa ilaahay yidhi dee kuwaasina iyana waa joogaan marka waxa weeyaan wadcigii oo adag shaydaan oo meesha jooga qolo kaleoo kuugu adhsanaysa oo meesha joogta iyo adigoo labaclabacla ah haddaa is heshaan dee arrinku waa khatar marka waa inaynu kala garanaa uun maxaynu kororsanaynaa maxaynu aan dib ugu soo noqdo markaasi waxaan ka bilaabayaa halkan waynu nimiye su-aasha ah si fiican qof waliba uga jawaabo ma waxaagii adigoo haysta inaad wax ku kororsataa baad rabtay mise inaad waxaagii wax ku bedelato ninkii rabay wixiisii inuu wax ku kororsadaa waxaad haysata diin baa ugu weyneedee diintii waa inaad xajisaa markaasaynu ka wada hadlaynaa adduun iyo wixii aynu kororsanayna taa haddii la waayo waa waxaygii baan wax ku bedelanayaa adna caydhiya shaqaa lagu siin ee diinta iyo carruurtana waa lagaala tegi adna caydhiya shaqaa lagu siin oo nabadgelyo iyo waxaad ku noolaatay oo kale laakiin nabaddu waa maxay nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu inoo tilmaamayay haddii afkaartaad rumaysantay iyo bulshadu waxay rumaysayiin markay iswaafaqaan in nabad helayso wuxuu nabigu yidhi man asbaxa minkum aaminan fii sirbi mucaafan fii jasadi cindahu quutu yowmi fakaanamaa xiizat lahu dunya bixadafiiriha ninka waa bariista isagoo nabad qaba fii sirbi ay fii qowmi aw fii mujtamaci aw fii ahli gurigiisi iyo reerkiisi iyo dadkiisi kuwaa bariista yacni bulshadii ay isku wax aaminsanaayeen ninka kuwaa bariista isagoo nabad qaba kaasoo ah mucaafan fii jasadi jidh ahaanna caafimaad qaba cindahu quutu yowmi maantaa wuxuu afka geliyana haysta kaa adduunkuba wuu ku dhan yahay buu nabigu tilmaamaya يعني كاسي وحا يستا ألمن نفسي ولمن العقد ولمن الفكر ولمن الصحي ولا وحي الشيغان ردنا يكور رمان أياكو صوروري لكن إنك وابرست في غير السرب جروب كي سعيد أنا إنك وابرست مبادئ أفكاري عقائد كلا قد سنة لسكال هوري ماضو كاسي مال خطر وجوغا مركز سؤال شو وحي تاي haddaad rabtaan inaad waxaa haysateen wax ku bedelataanna dee waa mas'ala haddaad rabtaan wixii ay haysateen inaad haysataanoo wax kororsataanna waxaa haysateen sidaa u haysan lahaydeen caqligeeda wayna keentaan oo kow waa midnimo inay isku xidhantiin laba waa juhdi iyo dhaqaale iyo xoog iyo waqti dheeraada Soomaaliya markaad joogtay intaad diinta ku bixin jirtay hadda waa inaad laba laabkeed iyo saddex laabkeed ku bixisaa hadday dhaqaale tahay hadday waqti tahay iyo hadday effort tahayba juhdi tahay waa inaad ku bixisaa waa inaanu aqbalnaa inaynu invest garaysano waxaynu aaminsanayn si uu u dhowrsoomi karo waxaa laga yaabaa in laga cawdo
macallimiinta masaajidka wax dhigtaa oo dee wadcigaba lama socdaan ama si fiican uma garanayaan kani waa caynkan dee you should be haddaad rabto hadaynu rabno macallinka dunida ugu fiican waa keeni kartaan magaaladiina tan ama masar ka keena ama soomaaliya ka keena ama meesha doontaan ka keeno waa keeni kartaan qof well trained ah experienced ah wax garanaya oo aad ilmihiina u dhibtaan waad keeni kartaan mid idinka wax idin bara laakiin maxay u baahan tahay dee inaad invest garaysataan inaad waqti ku bixisaan haddaad tidhaahdo wallaahi dee maalintiina waan soo shaqeeya goormaan wax dhigtaa dee waxaad joogantuun soomaalidu doqon bay sheegaan yidhi war maxaad u cadayan weyday baa la yidhi maalintiina geelaan raaca buu yidhi habeenkiina waan seexdaa goormaan cadaydaa anigaas wuxuu ka cawday inaanu waqti u helaynin cadaya inaanu waqti u helaynin wuxuu yidhi maalintiina geelaan raaca dee teena waa caynka haddaad tidhaahdo maalintiina geelaan raaca habeenkiina waan seexdaa ee goormaan diin bartaa dee diin la-aan baa ku leh wax iskale maaha idan haddaynu halkan rabno inaynu joogno diinna haysanno ama dhaqan haysanno ama afkeenna haysanno waa inaynu la nimaadno inaynu invest garayno wixeenna sidii aynu u haysan lahayn oo haddaynu caqli ku invest garaynaya haddaynu juhd iyo time ku invest garaynaya haddaynu lacag ku invest garaynaynaba waa inaynu tijaabinaa marka inteennina waa haysan karnaa إن شاء الله زيادتنا والرادعين كرنا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين